السلام عليكم وايد سلامي فيديو wuxuu ku saabsan yahay routine marka waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan iyo like iyo share insha Allah dadka ay hesheen marka daawasho wanaagsan isla socod wanaagsan soo routine ugu bilaabmay ilaa soo ku dhamaaday waxaan u tahay subax hore haddaan soo kaxnay alxamdulillah intaan hawl kala qabanin naftaada horta waxaan ku hore wajiga wax soo marso bishimaha faasliin soo marso waxaan ku hore waa kaas iska soo shaqeey adigu timaha soo xirxiro kadib hawsha guriga gal waxay idin duwa maanta routine subaxdii ilaa iyo habeenkii waxaan qabto maalmaha qaarkood maalin kastaba maaha insha Allah markaan la socod wanaagsan aad bay idin salaam soo dhawaada salaada subax baan tukanaynaa kadib canjeeraan sameysanaynaa carruurta kadib dhar yar baan soo saartay oo ilmuhu leeyihiin markaan qasaalada ku soo ritay waxaan soo galay jikada waxaan iska dhaqayaa weelkii yaraa oo lagu qurquraaday iyo wax yar oo xaligga tagtagay intaas yar markaan iska dhaqo aan dhaqdhaq ka dhigo waan ka soo baxay jikadii waan soo nadiifiyay dhammaanteed waxaan soo galay qolkii carruurta ilaa alaabtii lagu ciyaaray xataa sariiraha dushooda la dhigtay intaan jikada ku jiray baan guur qolkiina iska yar galo iskaga ciyaara kale maalinta khamiistii hawsha igu badan tahay alxamdulillah waxaan ku guriga dhan baa iska nadiifiyaa hadda carruur haysatid iyo haddaad xataa haysaninba waxa wanaagsan inaad usbuucii hal maalin aad guriga aad uga shaqaysid maalmaha kalena aad wixii muhiima laga tegi karaynin aad qabatid waxyaabaha qaarkoodna aad si yaroo fudud aad u dulmartid marka dad usbuuc kastaba hal maalin aad guriga dhan si fiican uga shaqaysid sariiraha ka badbadashid wax kastaba aad qabatid waxay ku noqonaysaa guriga ku fududaanaya masha Allah ku noqonayaa maalmaha kale oo intaas u dhaxaysa usbuucaasna waxay ku noqonaysaa hawl badan kugu yeelanayo marka kulli qof walba maalintuu jaanis fiican haysto ayuu samaysan karaa marka aniga khamiistii baan qabsadaa waxaan jeclahay inaan jimcihiina aan waxaan ku yiri carruurta intaan u marmaaro aan dhag banaanka u saaro marka jimcihii horta marka jimcihii ma jecli inaan guriga ka qabto hawlo badan iyo maxay hayday iyo waxyaabahaas waxaan jeclahay inaan carruurta maalintaas carruurta ka shaqeeyo iyo banaanka u saaro aniga laftirkeyga naftayda marka waxaan ku leeyahay khamiistii baan guriga dhag ka dhigaa alxamdulillah waan soo dhammaystiray hadda shaqadii guriga oo dhan wax yar oo xaab yar bay haray waqtigan hadda aan marayaan uu sida shidayo waxay tahay waa duhurkii kadib weeyaan anigaas fadhigiina ku soo shiday markaas aan soo wada shiday guriga haddana waxaa la bilaabayaa waa la yara nasanayaa iyar markaa yara nasto haddana waxaan bilaabay inaan carruurta keeg yar u sameeyo keeg yar baan iskugu soo dardarayaa aan u gelinayaa ovenka waqti badan kuguma qaadanayo carruurtuna keega way jecel yihiin waxay jecel yihiin maanta dhan inay cunaan sonkorta iyo saliidda uga yaree kadibna u samee halkaas waxaa idin tusay wuxuu ahaa waa butter amba subag qofus u yaqaano oo lagu daro maxay hayday keegaga iyo macmacaanada lagu sameeyo weeyaan wax yar ugu dar iyo wax yar oo sonkora dadagooga soo tuur ovenka iska geli hawlaha ka hor iskaga sii wado hadda markaan ciyaalka qadiisiye aan xoogaa yara nastay baan keegaasi ugu tuuray haddana waxa bilaabantay shaqadii kelinka dambe intaan keegaas aan wado aan dhameeyay waxaan ku shaqadii gelinka dambe aan bilaabay haddana waa iska khamiiso oo ka yar baan geeyaa kubad haddana waxaan geeyaa meel kale oo jimicsi yar uu ku sameeyo intaas bay orod bay ku soo dhamaataaba galabtii ilaa fiidka hore 7 meelahaas baan ka soo dhamaadaa wallahi 7 ayaan hore 8 ka soo dhamaadaa kadib waan kala shubayaa waxaan qayb madow iyo qayb cadaan ah ugu kala dhigayaa si uu qurux badan ugu soo baxo ciyaalku si jeclaadaan kula carruurta ayakoo wixii isku mid yihiin haddana waxay jecel yihiin wax yar oo kala duwan oo qurux iyo macaan yar isku darsaday adigoo isku hal wax ka sameeyay ayaad wada cadaanka markaad ka dhigtid markaad kala laba kala uga samaysid way kala jeclaanayaan waxay ku oranayaan Allah
maanta macaan wax macaan bay maamo noo samaysay laba kalar bay noo ka samaysay noocaas iyo noocaas marka kule carruurta haddaad rabtid inay jeclaadaan waxyaabaha siinaysid waa loo kala duwaa waxyaabo qurqurux badan isku dhex jira loo sameeyaa ugu dambeyn saas buu kusoo baxay keegii markaan dhinacii dambe rognina waa kaas saa quruxda badan loo kusoo baxay makiinada aad haysid ama birta aad haysid baa isticmaali kartaa saa arkaysa wax makiinadu kuma qasin qacantaad ku qasan kartaa wax yar oo fudud weeyaan de waa kaas okay ugu dambeyntii okay weeyaan baa idin idhi marka hawlihii kasoo dhamaaday aan cashadii waxaan samaysanaynaa beer lagu cashay maaragtay weligii cashadii markaan soo dhamaystiray aan casheeyey aan sii seexanayey waa waxaan xasuustay in rootiinkii weliga dhamaanin aan bilowgii idinku soo yidhi habeenkii ilaa habeenkii markaan seexanayo ilaa rootiinkii saaka ilaa subaxda ayuu ilaa habeenimadu idin dhamaanayaa sorry hurdaya soo hadalkii baa iska dhex dardarsamay bismillah waqti dambaan codeynaya waa kaas ugu dambeyntii oo habeennimadii oo markaan banaankii kasoo dhamaanay cashadii kasoo dhamaanay carruurtii seexiyey diban nafteyda dib usoo xasuustay maanta dhan baa shaqaynaysay maxaa kuu xal ah waa in adiguna waxaan ku wax dhag yar iska siisaa markaas waa anigaas dhag baan isku soo dhigay